waxaan idinkugu soo gudbin doonaa 15 ciqaabood oo sugaysa qofka salaada ka tago. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri qofka ka taga salaada waxa uu leeyahay 15 ciqaabood waxayna kala yihiin sidaan soo socota. 6 ciqaabood nolosha ayuu ku mutaystaa, 3 marka uu dhinto, 3 marka qabriga la geliyo, 3na maalinta qiyaamaha. 6da nolosha. 1 noloshiisu waa mid nasiib xun. 2 ducadiisu aqbal ma aha oo carshiga alle ma gaarto. 3 wajigiisu waa laga tiraa astaanta dadka fiican, murugo iyo shida ayuuna daris leeyahay inta uu nool yahay. 4 waxaa lagu ciqaabayaa wax kasta uu Ilaahay abuuray. 5 أجر في عن وسميستو ملهن لح ملغو در دعاء ددك في عن 3 عقابات مركا ودنتو وحو دنتا إساقو عيبوبي كان شلاينا يمالميه حمانتا كغتك يدونك. 2 وحو دنتا إساقو باهييسن. 3 وحو دنتا إساقو أون هايو هدي او بيها بدها أودن عبو أونك كبئي مايو. 3 عقابات اي غبرقا. 1 الله وحو اسكو عريريا فيريسا إلا أي مدبمت ككرمرتو. 2 waxaa lagu shidayaa korkiisa dab aan wax lagu mathaalo lahayn. 3 waxa uu Allah u soo dirayaa masas qaniina oo la yiraahdo geesi kaas oo qaniina subaxii ilaa duhurka ka tagida salaada subax awgeed, duhur ilaa casr ka tagida salaada duhur awgeed. sidaas oo kale ay salaad walba u socon doontaa markii uu hal mar qaniino. waxa uu qofka dhulka hoos u galayaa 70 yaardis. subhanallah. 3 maalinta qiyaamaha. 1 Allah waxa uu soo dirayaa qof garaaco oo cadaabta u jeeda wajigiisa. 2 Allah wuxuu ku fardhiyaa caro oo wajigiisa ayaa hilibka ka dhaca carada rabbigiisa darteed. 3 Allah wuxuu ku xukumaa xukun adag oo waxa lagu tuuraa cadaabta kuwa aan salaada subax tukan. nuurka wajigooda waa laga qaadaa. duhur ajarka fiican ee lacagtooda waa laga qaadaa. casr xoogga jirkooda waa laga qaadaa. مغرب ciyaalkooda ma aflaxaan. cishe nabad jiifka waa laga qaadaa. haddii uu ku soo gaaro codkayga Allah ha kuu naxariisto adduun iyo aakhiro. gaarsii dadka walaalahaaga ah ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin.